rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa maalmaha kamida u soo baxay banaanka isagoo indhaynaya jawiga dadka waxa ay qabanayaan iyo xaalka ay ku sugan yihiin inta dabadeed nabiga waxa uu la kulmay nin reer baadiye ah oo leh ya kariim rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa ka daba yiri ya kariim ninkii reer baadiye ah ayaa soo eegay rasuulka oo mar kale ku celiyay eraygii oo yiri ya kariim rasuulku mar kale ayuu ku celiyay eraygii ya kariim ninkii reer baadiyaha ayaa ku yiri ninkaagan wajiga furan leh ee qaabka qurxoon lahow ma inaan nin reer baadiye ahay darteeda ayaad igu jeesjeesaysaa wajigaagan furan iyo qaabkaagan qurxan ayaan kugu saamaxay mooyee ilaahay baan ku dhaartay waxaan kaaga dacwoon lahaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam inta dabadeed rasuulka oo dhoola cadeynay ayaa ku yiri ma garanaysaa rasuulkaaga markaasuu ninkii reer baadiye ahaa yiri maya waan aaminay aniga oon arag waana rumeeyay aniga oo la kulmin nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa isu sheegay oo yiri waa aniga rasuulkaaga iyo shafaacaha maalinta qiyaamo inta dabadeed ninka ayaa ku soo orday rasuulka isaga oo jilba jabsanaya doonayana inuu labada lugood qabsado inta dabadeed rasuulka ayaa ku yiri ha igu sameeynin waxa loo sameeyo boqorada Ruum iyo Cajamta malakul jibriil ayaa durba soo dagay markaas ayuu yiri salaamu alaykum ya muhammad ila rabbigaaga waxa uu ku leeyahay u sheeg midka kula jooga inuu san damaacinin deeqaheena iyo siinteena inuu san damac badan ka gelin maxaa yeelay waan ku xisaabin doonaa maalinta qiyaamo khabarkii ayuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam u sheegay ninkii reer baadiye kolkaasuu yiri rasuulka allah ilaahay miyuu xisaabinaya ها أو حسابنا يا أيها الرسول كير مركز يري إلهي من قدرته هدو الله حسابيه أنا ونوان حساب دونا رسولك آية يري أو محات حساب دون تعالى مركز نكير البادية هايري هدي حسابيه دنبيه إذا وحن حساب دونا دنبي داف كيسا هدو حسابيه بخيل لماذا إذا وحن حساب دونا deeqsinimadiisa hadii uu ugu xisaabiyo tabaryaradeedana waxa aan ku xisaabin doonaa awood badnidiisa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa ilmeeyay illa ilintu ay qoysay garkiisa markale waxa soo degay malakul jibriil oo yiri assalaamu alaykum ya muhammad rabbigaagu waxa uu ku leeyahay jooji ooyinta maxaa yeelay ilmadaadu waxa ay mashquulisay malaa'iktiisa carshiga alle oo ay ka mashquulisay xuski iyo dhikriga alle una sheeg midka kula jooga yuusan xisaabinin ma xisaabin doonee Allahu akbar oo jannada ayuu rafiiq ugu noqon doonaa durba ilaahay subhanahu wa ta'ala fariin ka timid ayaa loogu sheegay ninkaas reer baadiyaha ahaa in aan la xisaabin doonin maalinta qiyaamo oo nabi maxamed rafiiq la noqon doono jannada Allahu akbar walaalkaygiyo qisadan waxayna tusinaysaa qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala weynaantiisa iyo deeqihiisa garta ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu san dafiri doonin ninkan oo alla u tiiriyay wanaag oo dhan